maalmooda cabsida ugu weyn ayaana ah in xogta muwaadiniintu ay u gacan gasho dhinacyo kale maadaama muwaadinka laga diiwaan gelinayo magaciisa familkiisa iyo nambarkiisa taas oo sahashay in qofka xogtiisa si fudud loo hayo madaxweyne Ciro oo arrintani ka warhelay ayaa komishinka doorashooyinka amar ku siiyay inaanay qalabkaasi gacanta komishinka ka bixin halka guddiga uu magacaabayna uu ku amray iyagana in ay shirkadaha qandaraas ka qaatay keenaan qalab Somaliland la wareegto oo laga iibsado si aanay xogta ciidamadu ugu gacan gelin dalalka iska leh shirkadahaasi si weyn ayaa arrintani dood iyo hadal hayn ay uga abuurtay gudaha Somaliland iyadoo aad looga sheekaynayo goobaha bulshadu ay ku kulanto maadaama dadka qaarkii ay u arkaan arrin halis ku ah jiritaanka Somaliland hagaag saaxiibayaal halkaad weli inaga daawanaysaan waa shabakada Garaa TV xaalad cabsi ah ayaa soo wajahday hogaamiye lafta gareen iyo maamulkiisa koonfur galbeedba kadib markii ciidamada Itoobiya ay bilaabeen inay iskaga baxaan goobaha ugu muhiimsan maamulkaasi ee ay fadhiyeen sanadaha badan ciidamada dalka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta ayaa gacanta ku hayay goobaha ugu muhiimsanaa deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan xarumaha ay ku shaqayso dawladda maadaama ay faraba'an ku hayaan deegaanada maamulkaasi kooxaha argagixisada oo fariisima ku leh meel u muuqata magaalada Baydhabo ee caasimada ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana maalmahani ku mashquulsanayd calaamadaynta goobaha cusub ee ay ku shaqayn doonaan ciidanka dalka Itoobiya ee ka qayb galaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee EUSOMka iyadoo laga bedelayo meelihii ay horay u joogeen markii ay ka tirsanayeen howlgalka ATMIS haddaba iyadoo uu socdo qorshahani lagu bedelayo saldhigyada ciidanka Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ciidanka xabashida ee ku sugnaa deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan goobaha muhiimka ah ee dawladdu ay ku shaqayso sida madaxtooyada iyo ayriboorka magaalada Baydhabo ayaa galay diyaar garow u muuqda inay iskaga baxayaan goobahaasi taasoo cabsi iyo walwal xoogan ku tuurtay hogaamiyaha maamulkaasi lafta gareen oo ka cabsi qaba in kooxaha argagixisadu ay gudaha u soo galaan magaalada caasimada ku meel gaarka ah u ah maamulkiisa ee Baydhabo dawladda Soomaaliya waxa ay soo jeedisay in ay Itoobiya banayso gobolada Bay iyo Bakool iyo Gado laakiin Itoobiya ayaa qayb ahaan taasi ka cagajiiday waxayna si weyn iskaga riixeen inay ka baxaan gobolka Gado sidoo kalena gobolka Bakool ayay ku fara adeegeen waxaase la soo wariyay in Itoobiya si shuruud la'aan ay u aqbashay inay ka baxdo gobolka Bay oo ay ku jidho magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Baydhabo ayaa hadda si weyn ugu tiirsan kaalmada military ee Itoobiya waxayna ciidankeeda joogaan madaxtooyada koonfur galbeed garoonka diyaaradaha iyo goobo kale oo muhiim ah dawladda federaalka ayaa damacsan in magaalada Baydhabo la geeyo ciidan ka socda wadanka Uganda sida ay sheegayaan xubno ka tirsan dawladda federaalka isbeddelka ciidan ee Baydhabo ma noqonayo mid amni oo kaliya ee sidoo kale waxa uu noqonayaa mid siyaasadeed hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed oo xilligani ay la soo daristay cabsida ayaa arrintani waxa uu si gaar ah ugala hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dalbanaya in Baydhabo lagu daro goobaha ay sii joogayaan ciidanka wadanka Itoobiya sida ay ila ka tirsan fila Soomaaliya inoo xaqiijiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jawaab diidma ama ogolaanshiye ah aan siinin lafta gareen wuxuuna qabsaday in isaga laga warsugo muddo 10 cisho lafta gareen markii uu jeedinayay codsigani
waxaa wehlinayay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana go'aan weyn ku yeelan doonta haddii Baydhabo ay geyso ciidan ka socda Uganda, iyadoo ciidamadaasi aysan buuxin doonin kaalintii ciidanka Itoobiya ay ku garab istaagnaayeen hogaamiyaha Koonfur Galbeed lafta gareentaasi waxay ku qasbi doontaa inuu ka baxo wadadii Shariif Xasan Sheekh Aadan ama inuu 100% isku dhiibo taliska Xasan Sheekh oo ay filla Soomaaliya go'aan ka gaarto mustaqbalkiisa xukunka Koonfur Galbeed. haddii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku adkaysto inay ciidanka Itoobiya ka baxaan magaalada Baydhabo, lafta gareen waxa uu ku qasbanaan doonaa inuu qaato go'aan siyaasadeed oo kale. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa qaaday tallaabooyin uu sare ugu qaadayo xuquuqda bulshada Soomaaliyeed ee wax ka degan dalka Kenya, kuwaasoo ay horay cagta hoosteeda ugu hayeen madaxweynayaashii soo maray dalkaasi Kenya. agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa madaxweynaha Kenya William Ruto ku ammaanay sida uu ugu hiiliyay Soomaalida Kenya, isagoo ku tilmaamay madaxweynihii ugu fiicnaa dhammaanba madaxweynayaashii soo maray dalka Kenya. Fahad ayaa soo tiriyay fursado badan oo madaxweyne William Ruto uu siiyay Soomaalida Kenyaanka, isagoo sheegay in guushooda uu ku faraxsan yahay maadaama uu muddo dheer ku noolaa magaalada Mandheera. afartii madaxweyne ee Kenya soo maray waxay gobolka Soomaalida dad ahaan iyo deegaan ahaanba iskugu dareen dayaca dulmi iyo in la duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin dalka Kenya. William Ruto waa madaxweynihii ugu horeeyay oo Soomaalida Kenya ula dhaqma si lamida muwaadiniinta kale ee dalkiisa, sidaas uma dhahayo in uu xilal muhiima u magacaabay dad Soomaaliya sababtoo ah waa xilal ay ku kasbadeen mudnaan iyo karti ay u leeyihiin xilalka loo igmaday. muddo 62 sano waa markii koobaad ee madaxweyne Kenyana uu seexdo gobolka Soomaalida ee waqooyi bari. wuxuu saxiixay xeer qeexaya in la laalo hanaanka hubinta marka ay dalbanayaan kaarka aqoonsiga ama baasaboorka. waxaa la dhisayaa wadada isku xirta Marsabit ilaa Mandheera oo dhan 750 kilomitir. intaasi waxaa ka muhiimsan maadaama aan qayb noloshayda ka mid ah la noolaa shacabka Mandheera, si dhow baan u dareemayaa farxadda shacabkaasi walaalaha, taas oo ah mid aysan ka helin afartii madaxweyne ee soo maray Kenya, ayuu yiri taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin. waa hagaag wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Turkiga Alparslan Bayraktar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in markabka saaminta shidaalka ee Oruj Airways uu dhammaystiray 50% baaritaanada shidaal ee badda Soomaaliya, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. markabka Oruj ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore ku xirtay dekedda magaalada Muqdisho si uu u bilaabo howlgal sahmina oo lagu baarayo saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee xeebaha Soomaaliya. Bayraktar ayaa la kulmay wasiirka cusub ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya Daahir Shire Maxamed iyo wafdi uu hogaaminayo oo kulankaasoo ka dhacay magaalada Istanbul, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa. labada wasiir ayaa ka wada hadlay wejiga xige ee howlgallada sahminta iyo fursadaha iskaashiga cusub oo ka hirgeli kara dhulka. Bayraktar waxa uu sidoo kale shaaciyay in Turkiga iyo Soomaaliya ay bilaabeen geedi socod cusub oo iskaashi dhanka macdanta. kadib kulankaasi waxaan sii wadi doonaa dadaalada aan ugu jirno inaan gaarsiino iskaashigeena tamarta iyo macdanta heer ka turjumaya xiriirka dhow ee daacadda ah ee ka dhaxeeya labada wadan, sida uu sheegay. markabka Turkiga ee Oruj Airways ayaa ka wada biyaha Soomaaliya daraasado 3 cabir 3D oo dhanka ciidda ah, kuwaas oo lagu aruurinayo xog muhiima oo ah saameynta si loo ogaado meelaha suuragalka ah ee saliidda iyo gaaska dabiiciga ahi ay ku jiraan. xogtani ayaa lagu falanqayn doonaa
caasimada Turkiga ee Ankara si loo aqoonsado goobaha ugu habboon ee lagu samayn karo qodista batroolka iyo gaaska. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga